وإيابا وقبيل sida qabiilka inagu dhulbaanta aynu nahay iyaguna istaaq u yihiin halkan oo ah duleedka bari ee magaalada Buuhoodle waxa hadda ka ambabaxaya qaybo kamida ciidamada difaaca gobolka Cayn kuwaas oo ambabaxaya magaalada Laascaanood taasoo muddooyinkii reer Laascaanood fariinteeda gaarsiiyay kaarta yar baa idin sheegaya oo aan lagu kala xoog badnayn oo wiilka taangiga wata iyo wiilka aakaha wata dhibashada Ilaahay u siman yihiin ana kala awood roonay dagaalka magaalada waxa la yiraahdo hawiya ka soo barta xamar waan joogan ka soo barta nooyo dhageysta dhagax tuurkaan ee magaalada dhex ordaysan jooji ka war fariinteeda gaarsiiyay qoryaha ay la soo baxdeen maanta oo aad dagaalanteen oo dhagaxii xabad ku badasheen waa idinku mahad celinaya Allah idin karaamay Allah idin guulay waxa sameeynaysan dabaqyada magaalada dabaq kasta waxa saaraysaan 3 qof dabaq kasta waxa saaran 3 qof waxa u fuulaysan si teelteela war fariinteeda gaarsiiyay si teelteela dabaqa marka 3 saadaan dabaq ka soo horjeeda 3 kala saaraysan ama 4 intuu qaado dabaq haduu sayskiisu balaaran yahay 15 ba saaraysan 5 ilaa 10 qoryaha waa u miisaanaysan beekaam iyo akan waa israacinaysan teelteel baa fuulaysan dabaq wuxuu ka saacidayaa bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh qubna galanta waxaan ku dul istaagaynaa xaaladda Laascaano oo aad u cakiran xabadu waa dhacaysa xilliga ay la hadlayo dhimashada shacabka maanta ku dhintay shalay 8 bay dhimashadu maraysay maanta kaliya waxa dhintay 7 nafta weyday dumar u badan culuma ku jira odayaal masaajid ku jiray oo culumaada ku jira oo ku dhintay ilaahay inta dhimatay uu naxariisto inta dhaawacaana Allah u booganayo xaaladdu aad bay u xunta dhaga kale Buuhoodle ciidamo abaabulan oo ciidanka halka fadhiyay oo reer Buuhoodle ahaa oo wagoro Buuhoodle difaacday ayaa ayaguna soo ruqaansaday oo xagga ay Laascaano soo ruqaansaday sidoo kale waxaan weli afgaala iyo afmusuju laga hayn horgaladii u dhashay deegaanka Laascaano ama Sool horgaladaas waa kuma horgal markaan idin iraahdo waxaad xasuusataan ninka la yiraahdo isha kuwa Soomaaliland ee adeegsato gordhabada ah baad xasuusataan horgaladu kuwa kaliya maaha horgaladu waa badan yihiin horgalo Puntland jooga jira oo ugu horeeyo midka madaxa cad ee la yiraahdo Axmed Karaash horgalka kaas maaha waliba horgal aad u liita way aad iyo aad u liita way horgalka Muuse Bixi kuwaana ka daran wili horgaladaasi afgaala juq laga bahay hada tacsi laga bahay ina kooraadi horgalqaana horgalka ina koora iga liita waa horgalkan nacaska ah ee garow ku qaylaya nicda ku cunay ee darqurux u jiibiya hadalka u dhaha horgal aad u liita way tacsi buu qoori waay maanta gurigiisa dhagax la dhacaya gabdho is abaabulay oo garow iska wala mudaharaad garow ka dhaxwada ayaa gurigiisa hortiisa istaagay dhagax la dhacaya guriga hor soo xirta albaabku soo xirta neeqaada u furan oo kabar looga reebo dani ku reebay ciidanku hayaay xisaab male boqol technical uu haysta waa isagu leeyahay balse meeday dameerkii ku tagi lahaa meey muxuu markii la wareystay rag baa arkay wareystay maxaa ku dhacay ninka aamusiyay anigu naalay Axmed baan hayo diyaangu Laascaano ma dago diyaadii la ku rooyay shaax siyaadi bahar rasmaha loo sheegay waxaasa horgalka roone horgalka ugu liita ka inuu yahay horta ilaahay baan ku dharshay wallahi billahi odayaal baan wareyst waliba isma baan wareyst oo deegaanka oo tagay oo yuu maxaa ku dhacay Axmed Karaash waa madaxweyne ku xigeenki waa ninka Sool matalayo ku jooga meesha oo ku soo ku fadhiya wadani garanayo aqal ma leeyahay waa fayeenki ninka la yiraahdo Muuse Bixi adiga maxaan kaga xisaabtana dee anigu naalay Axmed baan hode xudun man dagaayo oo xudun yaa haysta xudun man Soomaaliland haysan dee Laascaano gabdhaha koo yahay waa gabdho jaamac siyaad iyo bahar soo ilaahay dhuunta ku dhif ilaahay doqonnimada ugu shakaa faraweyna dameer xumo awux maga horgal markaa aysan laba dhinac ku soo dara lugator iyo ku soo dara lugator midka wasiirka maartay duulista waday ma qadayay iyo faafinte hada jooga meesha yaabaan horgaladu waxa la yiraahdaa kuwa Laascaano fadhiya Soomaaliland iyo kuwa Puntland fadhiyaba waa horgalo dameer male matalaad male gordhabo weeye nic jaada meesha u fadhiya way naata Allah alayk ma xilbana 7 xildhibaan meesha fadhiya ha ka reebinin 7 xildhibaan bagal walax fadhiya ku qayris gabdhaha calaalay gabdhaha dagaalamay gabdhaha dhagaxa tuuraya gabadha xabada ridaysa Laascaano joog ee caalamka Soomaaliya ka haysata
ilaahay ku guulayaan le ilaahay ku guulay rag kulama dhalan dhul bahanta kaliya maaha hartigaan macaan rag ahayn harti waxa la yidhahdo dhaxataa jirin aan damiir iyo dadnimo midna ahayn wax nacladi ku dhacday ilahay nacladi ku dhacday ilahay nacladi ku dhacday ciidan baa waxay ka soo dhaaqeen maanta Buuhoodle ayagana waa sugaynaa waxtarkooda waa sugaynaa insha Allah ilaahay ha idin soo gaarsiiyo idinko nabada waa kuwaana ciidankii Buuhoodle oo soo ruqaansaday waa iyaba waa qabiil sida qabiilka inagu dhulbahanta aynu nahay iyaguna isaaq u yihiin halkan oo ah duleedka bari ee magaalada Buuhoodle waxaa hadda ka ambabaxaya qaybo kamid ah ciidamada difaaca gobolka Cayn kuwaas oo ambabaxaya magaalada Laascaanood taasoo muddooyinkii u dambeeyay ay ka socdeen dhibaatooyin tacaddi kuwaas oo lagu hayo ilaahay nabada ku soo gaarsiiyo ilaahayna ha idin garab galo gabadhaha Soomaaliyeed ee gabdhaha daraawiisheed ee maanta xabad loo dhacay Laascaano wiilashii la dhashay baa tihiin soo gaara dhamacda rida waa inta soo aadhiman ba weydaan gabadha halkan ka dagaalamaysa ee hoogooda bacay kale ee dhagaxa tuuraysaa ila daawo meedkana xambaarsan dhagaxana tuuraysa gabadha mid kala dhashay waa adiga ama garawa joog ama Laascaana fadhi ama bahalki joog ama baran fadhi ama gaalkacyo fadhi adaa la dhashay adayna hiilkaa sugaysaa sida u daawanaysa waa garan la maxaa la ka sameeyay niman maxaa la ka sameeyay horgaladu kala roone ma haysaa midkii ayaan baasha loolan jiray ayntaada lagu ruuxa laga abuuray wax maxaa laga abuuray gabadha ninka la dhashay maanta ee Laascaana ku sugan ee beebayaasha iyo tiknikada haysta ilaahay baa idinku dhaashay beebayaasha iyo tiknikada haysta ee hadal oo sinu xun la wax laga hayaa weyna warina ambaasho maxaa laga hayaa war maxaa laga hayaa nacala shaydaan ku yaal waxaan wax ka badan nimanku seeba qaab noocay lagu adeegsaday ma waxba lagu siiyay oo waa sixran tahay mise rikaata lagu haysta waxba laga hayo waxaan maqli jiray gabar tiraahdo nin baa video iga duubay oo ka baqaya inuu soo dhigo warina ambaasho maxaa laga hayaa kuwa Buuhoodle ka soo dhaaqaya adaa uga dhow gabadhaas maanta Laascaana la jooga ooyeys oo walaashay baraay ma kana caaw dhig beela ma baranbara wara baranbarata yaa kugu mataansanayd nacad alla kugu ridi uquba alla kugu ciidankaas ka soo dhaaqay Buuhoodle waa hambalyeynaya ka gaarsiiye shacabkaasna u hiiliye waxaan arkay kuwa badan oo leh gabdhahaas dadka dagaalamaya waxay u dagaalamayaan waa calanka Soomaaliya dawladda Soomaaliya maxay u hadli weyd ana idin sheegay dawladda Soomaaliya waxay Xasan Sheekh Maxamuud shalay markuu xilka hayn oo kursiga uu ku fadhiyin ee mucaaradka ahaa waa kana asagoo Soomaaliya sanaag leefay ila dhageyso waxaa soo hartay walaashay gobolada Sool iyo Sanaag dad Soomaaliyeed oo aad u qiimo badan oo mabaadi'da iska raacsanaa waliba dad midnimada u taagan oo midnimada jecel oo dhibaatooyin badan oo marka qaarkood u xiraysi badan ay midnimada ku soo gaartay waay laakiin waxaan rabnaa waa isweydiinaysaa maanta muxuu uga hadli waayay islaam maanta wuxuu uga hadli waayay عشرات إير السماعة باودارن إير السماعة عشرات اللي هذا باودارن أو تبوتي السكود بركدي أدي على كورة يا عشرات تبوتي ألبك تبوتي اللي جسمه باودارن إير السماعة وحكون عسيه هاي ده كان أبارك عن تضيع لا أنت تكون عسيه مسبح من القصة شالي وأركز وقت الفصل علي أفرت غفو بينما كل ما تي وأنا كحنا هاي واحد بينما كداعي أفر يتهم بما أنت مشهور مريسا داود وأنا صدق بكرة في الأسعان على الصومالية بيساووا بني عندك حد مري على الصومالية بني حسن قال لي ما عرفتي حسن قال لي وزير هذا قوة البحرين تمت يا كمان اللي كمان صوته حلو قاضية مرحومك بقى مرحومك حمزة سوى عمر قات لا يعمل استغفر الله تعاون منه سوى الناس قال عمر قاتاوي تعاون منه لكن حسن ومحاول الويد هاورننا حسن دعيا لاسعنا كدعيا كو قنعسين شلay beer la xawsigi dadkaas qadiyadna waa walaalo Soomaaliyeed qadiyadoodu shalay ahayd waxa ka qaalisan midda maanta ah irir Soomaalinimada ka qaalisan aan idin sheegay
marka iska xira waxa reer khaatumo midaan leh calankan buluuga ay inta iska dhigtaan midkiina khaatumo ee saanta u leedihiin adeeryaa taagti halkiina ka taagti halkan la kan buluuga xaga noo dhiga midka khaatumo ah ka taagta meesha xaggaana hiilka sugumaysid kana waa kan lagu leeyahay xagga ay noo dhiga ayaa gudbiya ligala yaa boqor burhaan oo maanta hadlay waa mahad celinaya laakiin boqorow inta ay uga filna boqor burhaan hadalkiisi ay dhageysiyo waa kane waxaan leeyahay maamulka Soomaaliland arrinkan ma aha wax qurux badan wayna ka tagaysaa arrin maamul iyo wax la mid ah waxay isu bedeli ka dhaawaji kaleeto waxaan leeyahay inay ka waantoodaan oo dadkaasu ay sida ay rabaan iyo sida ay xorriyadooda ay iyagu doonayaan inay muxuu ahay faraha uga qaadaan maamulku inuu ka waantoobo dhibaatada meesha ka socota oo arkayno oo caalamka oo dhan hadda ay kulli indhaha lagu wada hayo qof dhagax tuurayo xabad la dhacayo sidii Falastiin oo kaleeto wixii ka socday waxaan leenahay wax qurux badan maaha waana wax keeni ka dhaca qiimo weyn oo ummadan iyo dadkan walaalka ah oo ku wada nool wadankan dhibaato weyn u horseedi ka dhac waxayna isu bedeli ka dhac arrinkaasi arrin qabiil waxay isu bedeli ka dhac waji kaleeto aan qurux badnayn waxay isu bedeli ka dhac wax aan marnaba la mahadin boqorow waa maasanta inay hadashid ama damqashada muujisid baa laftigeeda dadnimo iyo damiir u baahan sida dani hadaadan aamusin sida wiilkaaga adeerka u ahay dani hadaadan aamusin waa kaaga mahad celinaya inay hadashay laakiin boqorow intaan iguma filna waxa igu filan boqorow maalin la yiraahdo sida ka daaya ama sida sameeya ma xarigay goosot 14 dhimasho marsa dhaawac cusub u maraya maala yaani dadaan hubaysnayn baa la leeynaya xasuuq genocide baa socda genocide boqorow waxaan ka rabaa inaad go'a taagtid dadka boqorkoodii baata boqor daarood baata la saana boqorkeedii baata inaad qandala iyo caluula iyo bandarbayla aad ka soo bilowdo go'aan rabaa go'a aad tiraada kac dawladii Puntland ahayd oo lagu xisaabtami lahaa waxay noqotay afayeen Muuse Biixi noqotay boqorow maanta istaag shacabka go'a u tur qabiil kasta ahay technical wax kasta ku gaashay dawladda Puntland naga qabiil ahaan ma uga wad badan boqorow dadka qabiil ahaan ku soo kacay ilaa mudug iyo ilaa bari weer la dhexmar weer cad saa oo dhexmar oo dadka soo kacay intaas aan ku leeyahay dadka maanta ku maqlaya adeecay ku yihiin ismkoodii baata adaa maanta madax meel ka sarreeyo saraxa male dadkaas walaalaha ayaa boqorku tahadaawane ka isaag boqorow meesha oo gol dhexqaad oo miidiyaha mari oo ka cadda dadka laakiin sidaa maaha boqorow dacwadaas waa dacwad fiicsan way iga xun boqorow iga xun maanta waxay u baahan tahay xabad bay u baahan tahay inaan shadu ka reebin sharci kama reebo xabad bay laascaana u baahan tahay in lagu xoreeye af uma baahna boqorow khayr Allah ku siiyay marka damiirkii waa ka arkaaye iyo daqnashadii ilaahay daniyo kala kaama dhigine inta hal mar istaagtid boqorow weer cad mudug iyo bar inta u dhaxaysa ilaa sanaag weer cad saa oo dhexmar intaasaan boqorow ku leeyahay ilaahayna ka ajirsiiyo hadalkaagaasi waa maanta way anfacay Saciid Cabdullaahi Dani waa Saciid Qurux waxa ka sugaysaa inuu hadlo ama wax ka yiraahdo wallahi ka suginina oo bilaahi ka suginina oo Puntland waxa ka suginina ana hadii sheegay Saciid soolka a sheegaysid iyo Puntland a sheegaysid iyo qadiyadeeda waxa kala qaalisan gabadha wiilkiisu qaba kala qaalisan ee Muuse Biixi ba kala qaalisan oo san hadli karin waa ka shalay markuu idii cadeynayay inuu afhayeen u yahay Soomaaliland oo miska u garaacanay وسبيه وظيف ديرنا محاسوب لك هاجل ورد الصومال حديد قرابي صاحب بارنا هلكي جوغانو حدار الانو هذا ومسؤول صوماليين يا كهلايا حديد بان حيغالان نحي عندنا ويلكيسا كلا قالسن gobolada iyo waxa sheegaysan iyo Puntland iyo waxa ka sheekeynaysan عندنا ويلكيسا ba kala qaalisan ha ku habsaaminina marka dhul bahantow reer buu hood la sheegmay reer laas caanoodo wariyaha qaat horta maanta waxaan uga mahad celinayaa oo halkaan ka xusayaa reer buu hood waa mahadinayaa waxaan kaloo mahadinayaa maanta bahash inay waji kala yeelatayo shacabku inay qoryahoodii qaateen laas caano ayadana waa mahadinayaa wariyaha qaata oo dagaalama waxa la isoo sheegayaa inaan xogta ku helay oo la cadeeyay saaxiibkay Xamed Jabuutaawi oo dagaalka galay oo xabadu ka dhex socoto
aaraaruy asaga aaraariyum yani wixii Somaliland ciidamadoodii iyo asaga inay maanta ka dhex socotay ayadana waa hambalyeynaya intaas iyo ka yar bay gobanadu jira wallahi wiilka dhintay billahi tallahi jannu galaya wallahi oo billahi ilaahay baa cadeeyay ninka difaacaya naftiisa maxastiisa iyo maalkiisa iyo masabkiisa qofka difaacaya wallahi waa dakhala janna wallahi waa dakhala janna midka huunada ah ee meesha ku dhimanaya ee hadii la ku raahay jeclay habar yoonis hadii la ku rooyahay laga keenay hadii la ku rooyahay awdal laga keenay ee halka ku dhimaya saacad muus halka ku dhimanaya wallahi naar buu galaya oo billahi galaya adduunkana naar aakhirana naar buu galaya adduunkana si faax muu dhimanaya sumeero salahayn gardaro ku soconaya dagaalama shacabku dagaalama mid kale idin sheegay reer Somaliland maxaa reer hadii la ku rooyahay reer raas caadadu xog baa idin siinaya dagaalka magaalada ma taqaanaan waa idooga dagaalka magaalada ma taqaanaan anigu nimanka hawiyaan in badan la soo qaday oo halka ay xamar ku wada dagaal magaalada dhexdeeda magaalada lagu kala xoog badna taangiga wiilka wataa iyo midka aka wataa magaalada waa isku xaquuq waa kii alla ka dhifsiya inta ay sheegay guriyaha dabaqyada waad fuulaysan laamiga dhex ordaysaan joojiya balaaya ku dhacday war video waa gaarsiiyay videogaas kaarta yar baan wada gaarsiiyay war magaalada qoriga ka haya khasrada wiilka haysta iyo wiilka dhashiika iyo beeba iyo waxba kaba taraan magaalo darbiga madaxa la saaraa kan gaariga wato dhashiikaha saaran baa liita markii magaalo yaado daaqad baa la dooshadaa laamiga wixii marayo aatuuta ku aagtidba mis baa lagu siiya meel ka arkayaan jirin darbiga tood guri kasta saddex afar guri kasta saddex guri kasta dabaqa saddex iyo afar saara oo laamiga ku yaala oo tel baa loo saaraya tel day guriga marka saddex la saaro kaga soo horjeeda saddex kala la saaraya kaga soo horjeeda kala saddex kala la saaraya tel baa loo saaraya kaarta ay gaarsi dagaal magaalo luma kala adka dagaal magaalo nimanka la gala laas caanayaysan fooda soo galin magaaladana dabaqyada qabsada caawo dabaqyada dabaq kasta ninkii diida dabaqisa lagu dagaalamo asaguna waa horgal kale halka ku dhufto ninkii dhul bahanta ah oo laas caan jooga ee diida in lagu dagaalamo dabaqisa la fuuro halka ku dhufto halka calaamadi dhimashadiina waa yaraanaysa khasaaro waa yaraanaya ayaga kooduna waa la jibaarmaya marka laamiga oo disaan joojiye dabaqyada fuuro guriyaha aad banaanka lama rabo waa kay ragii qayb ka dagaalamaysa luuq lama rabo waxa loo baahan yahay inaad ka dagaalantaan daaqadaha sababta waxaad arkaysaa 1 kilomitir adigu 500 mitir waxaad ka arkaysaa qofka soo lugeynaya oo wax la wixii ka sokeeyay way ka hooseeyaan banaanka ka tooganaysa marka waxa loo baahan yahay inaad fuushaan dabaqyada taahay laawinin shacabka ku daadaya hadii aan ku rooyahay khasaaraha yaraanaya kuwoodana badanaya dagaalkaas dagaal waxa la yiraahdaa dagaal magaalada la yiraahdaa hawiyaan ka soo barto magaalada ku dagaalamay yaqaana halka fuura magaalada lagu kala adka wiilka taangiga watay wiilka aka wataa ilaahay waa u siman yihiin dhimashadana waa u siman yihiin waa kii ay toshiis hor qoontaa hor dhinta dabaqyada ogaada dabaqii nin dhul bahantaa leeyahay oo u diido halka ku dhufto kii aan dhul bahanta ahayna adeer ka leexada khayr Allah ku siiyo waagi diyaar ku haduu qolada kale yahay qof shacab yaan la taaban oo adoo dulmi diidan dulmi kale hagelin haduu shacab yahay qofku qabiilku doono ahaado dabaqa adeer dambaan ku sameeysanaa dambaan ka gaarayna cashuurtii dhulka laga qaadayaa fariisade dhulku dad ka mid yahay laakiin yaan qof shacaba ama qoys loo dilin ama isaaqa hado ama godobirsay cid rabaa qof shacaba meesha ganacsada kale waxa yaan la taaban laakiin dabaq kasta waa in la fuulaa saddex baa u fuulaysan tel baa loo fuulaya fiyaaraha magaalada oo dhan xaafadaha dhan waa in la isqaybiyaa ragga aan fariinta u dirayo hal la gaarsiiyo war ragga aan fariinta u dirayo loogu daro idinka yaqaana ciwaanadooda hal la gaarsiiyo meel aan ka wada gaarsiin kara halka aan ka wada gaarsiiyo maahay intaas aan idin leeyahay guul baa idin rajeynaya wallahi waa guuleysanaysaan oo billahi waa guuleysanaysaan oo tallahi waa guuleysanaysaan oo kiina dhintaa waa helo janno maxaa ka macaan ninkii maanta adduun haddaa goobnimada dhulka ku xoreysatid haddii aad dhimatid yahay janno ku siiyay maxaa ka weydi illa ninka maanta cirdigiisa iyo sharaftiisa iyo gabadha ooyeysa walaasha ninkay badbaadin lahaa waa adiga ilaahay wuxuu ku yiri waxa kaliya dhiig maalinta lagu baneeyay inaad daadisid waa in aad walaasha difaacaysid naagta difaacaysid maalkaaga maxaa difaacaysid maanta lagu baneeyay weerarka lagu yahay cirdigaaga weerar lagu yahay maanta maalin lahaynba maanta shaki ku jira miyaan dilil haysan miyaysan maalinta la difaacan lahaa waxa duulaan ku yeesho gabdhahan ma ooyay waxa duulaan ku yeesho gabdhaha dhagax tuulaya ma waxa bedel dhacayso ayaga ma kii difaac lahaa adiga halka
ina cambaasho mid baan leeyahay ina cambaasho mid baan leeyahay ilaahay tabartaada waa kaa qari ilaahay dadnimadaada waa kaa qari ilaahay nasabka aad tahay waa kaa qari ilaahay wuxuu kuu abuuray waa kaa qari ilaahay wuxuu ku difaaco aayadaha qur-aanka kuu sheegay waa ka indha saabatay ilaahay waxaan kuu bariyay ilaahay waxaan kuu bariyay ilaahay waxaan kuu bariyay ilaahay ku dulle waa dulaysan tahay ilaahay si fool xun kuu dil nasabna ma tihid ina gumeed dhalay huuna waa baxaysa huunadaani waa baxaysa adaa soo hari doona adoo ina gumeed oo uraya bayla tahay laas aan ku dhaxarki doono oo dadku markay ag maraysid sanka qabsan sanka hatta waxa la dilaa nariga la dilaa inay saxka ku dilin dhul bahanta ee markay u soo agbadid inay sanka qabsan taas ay imaan doonta ilaahay waa tusi doona wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa